Xayawaanada isku nooca ah ayaa kala duwanaan kara sida eyda oo kale. Iyagoo ey isku ah ayaa waxaa u dhexeeya farqiyo muuqaalkooda iyo jidhkooda ah, taasaana keentay in magacyo kala gaar ah la kala siiyo. Xayawaanada kale oo dhanna waa sidaas, khaasatan hadday xayawaanadaas ku kala nool yihiin gobollo kala gedisan. Mararka qaarkood ayaa midabkoodu kala duwan yahay ama kala waaweyn yihiin, qaybtooduna yaryar tahay. Marka sidaas daraaddeed ayaa loogu magac daraa qaybtood gobolka ay ku nool yihiin ama mandiqada ay ka soo jeedaan. Waa kuwan marka 10 xayawaan oo loogu magac daray Soomaalida. Dibqalloocyada ayaa noocyo kala duwan leh. Sanadii 2013 ayaa waxaa dhulka Soomaalidu degto laga helay 2 nooc oo cusub oo dibqallooca. Nooca hore ayaa waxaa laga helay meel magaalada Burco ku dhow. Nimankii ajaanibta ah ee helay ayaa waxay u bixiyeen oo ay afka Ingiriiska ugu yeeraan dabaqallooc, iyagoo ka wada magaca ay Soomaalidu u taqaano dibqallooca. Marka dibqalloocaas ayaa waxaa Ingiriiska loogu yeeraa dibqallooc. Nooca labaad ayaa waxaa laga helay meel ka tirsan gobolka Bari oo u dhow Galgalan. Noocan ayaa ajaanibta heshay waxay u bixiyeen Puntlandis, iyagoo ugu magac daray Puntland. Waxaan filayaa in hadda kadib uu dibqalloocan ka mid noqon doono ama xubin uu ka noqon doono dowladda federaalka. Somali Slender Mongoose waa xayawaan ka mid ah xayawaanada ku nool dhulka ay Soomaalidu degto. Waxaan filayaa inay Soomaalidu u taqaan soongur, maadaama uu dhulka Soomaalida la degan yahay ama uu ku nool yahay, ayaa soongurtaan loogu magac daray Soomaalida. Kan waa dameer dhulka baadiyaha ku nool, inkastoo la yidhi waxaa laga baqayaa inuu dabar go'o amaba ay tiradiisu aad u yar tahay. Waxa uu ku noolaa Soomaaliya, Itoobiya, dhulka Canfartu degto iyo weliba Eritrea. Dameerkan ayaa waxa uu caan ku yahay in lugihiisa qaybta hoose uu uga eg yahay dameer farowga oo caddaan iyo madow isugu jiro. Somali Bush Beaver. Xayawaankan oo aan magaciisa af Soomaali ku garanayn ayaa waxa uu ku nool yahay koonfurta Soomaaliya iyo Kenya. Xayawaankan ayaa ah habeenley ee habeenkii socda oo cuntadooda raadsada. Somali Hedgehog. Xayawaankan oon filayo in la dhaho caanaqub ama kashito. Noocan ayaa waxaa laga helaa Soomaaliya oo kaliya, sidaa darteed ayaa loogu magacaabay Somali Hedgehog. Shimbirtan ayaa waxaa loo yaqaanaa Somali Bee Eater. Waxa ay shimbirtan aad u cuntaa xasharaadka sida shinnida oo kale, sidaa darteed ayaa loogu bixiyay Bee Eater ama shinni cune. Bisadan ama mukulaashan Soomaaliya kuma noola, laakiin Soomaalida ayaa loogu magac daray. Waa bisad qurux badan oo leh dabo timo badan. Waxa ay ka mid tahay noocyada bisadaha ee aadka loo jecel yahay. Qooleydan ayaa loogu magac daray Soomaalida sababtoo ah waxa ay ku nooshahay gobollada Bari, Sanaag iyo Togdheer. Meelahaas kaliya ayay ku nooshahay, inkastoo aan laga warhayn hadda inta ay tiradoodu tahay iyo inay tiro badani ka nooshahay. Rahdan ayaa waxay ku nooshahay wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya. Waxaa loogu magac daray Soomaalida. Rahdan ayaa laga helaa dhulka cawska ah iyo meelaha ay biyuhu roobku fariistaan.